dowladda Ruushka ayaa u muuqatay inay danaynayso inay saldhig military ka samaysato xeebaha berbera ee Somaliland. haddii ay go'aankaas kaga dhabayso wuxuu noqonayaa saldhiggii u horreeyay ee Ruushku Afrika ku yeesho. wargeyska caanka ah ee New York Times ayaa dhawaan qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay Ruushka oo saameyn sii kordhaysa ku leh Afrika iyo reer galbeed badan oo ka wareersan. waxaana uu warbixintaas ku sheegay in dalka Ruushku uu xidhiidho badan la sameeyay Afrika, kuwaas oo uu ka kasbaday kalsooni. wargeyska oo soo xiganaya saraakiil Maraykan ah oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga Maraykanka wuxuu sheegay in meelaha uu Ruushka isha ku haya ay ka mid tahay magaalo xeebeedda berbera ee Somaliland. sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhiggu, Ruushku waxa uu isha ku hayaa magaalo xeebeedda berbera ee Somaliland. warbixintan waxaa iyaguna si weyn u qaadaa dhigay warbaahinta dalka Ruushka oo aad u baahiyay damaca dowladda Ruushka ee saldhigga uu ka samaysanayo berbera. Maraykanka ayaa u muuqda inuu si weyn uga walaacsan yahay saameynta Ruushka ee Afrika, si gaar ahna waxa ay isha uga hayaan dhaqdhaqaaq kasta oo Ruushku doonayo inuu ku soo gaadho xeebaha berbera ee Somaliland. bishii January 3 guddiga aqalka Senateska Maraykanka u qaabilsan ciidamada ayaa xog wareysi qaatay 2 saacadood la yeeshay taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afrika, General Stephen, iyadoo uu sarkaalkaasi si weyn uga deydiyay saameynta sii kordhaysa ee Ruushka iyo Shiinuhu ay ku yeelanayaan qaaradda Afrika, oo muujiyay inay si dhow la socdaan dhaqdhaqaaqyada sii kordhaya. taliyaha oo la hadlayay guddida ciidamada ee golaha Senateska Maraykanka ayaa sheegay in Ruushka iyo Shiinuhu ay ogsoon yihiin muhiimadda istiraatijiyadeed iyo dhaqaale ee ay leedahay qaaradda Afrika. wuxuuna sheegay inay haatan sii kordhiyeen sidii ay fursadahaas gacanta ugu dhigi lahaayeen, isla markaana u libin laabi lahaayeen saameyntooda qaaradda Afrika. taliyaha ayaa sheegay in qorshaha difaaca qaran ee Maraykanku uu farayo inay mudnaanta siiyaan sidii ay ula baratami lahaayeen quwadahaas oo halis ku ah danaha Maraykanka. Ruushku waxa uu kor u qaaday heshiisyadiisa uu la gelayo qaaradda Afrika 200%, heshiisyadaas oo u badan dhammaantood kala iibsiga hubka. waxaana qaaradda Afrika uu ka iibiyo hub gaaraya $9 bilyan. shirkadaha hubaysan ee Ruushka ayaa iyaguna si weyn saameyn xasilooni darro ugu leh qaaradda Afrika. sidaasi waxaa sheegay taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afrika. maadaama ay xadidan tahay taageerada Maraykanka ee uu u fidiyo wadamada Afrika si ay ula dagaalamaan kooxaha jirka, taasi waxay keentay inay dalal badani u leexdaan dhinaca dalweynaha Ruushka. saraakiil Ruush ah oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin sirdoonka Ruushka ayaa dhawaan socdaal qarsoodi ah ku yimi caasimadda Somaliland ee Hargeysa, iyaga oo dalku galka Somaliland ka soo qaatay safaaradda Somaliland ay ku leedahay dalka Djibouti. shabakadda wararka Somaliland ayaa baahisay magacyada saraakiishan oo ay sheegtay in baasaboorradooda la soo saaray 2 bilood ka hor, taas oo u muuqata in loo soo diray socdaalkan gaarka ah. warar kale oo la helay ayaa waxay xaqiijiyeen in wafdi ka socda Somaliland oo socdaal ku tagay dalka Maraykanka sanadkii 2016 inay xilligaas aqalka Senateska Maraykanka kula kulmeen ugu yaraan mas'uuliyiinta ugu sareysa ilaa 11 xafiis oo aqalada Koongareeska iyo Senateska u qaabilsan arrimaha Afrika iyo arrimaha dibadda. waxaana ay xilligaas saraakiisha Maraykanku wafdiga Somaliland la wadaageen dareenka ay ka qabaan saameynta sii kordhaysa ee Shiinaha iyo Ruushku ku yeelanayaan geeska Afrika, iyaga oo xilligaas aad ugu dheeraaday damaca Shiinaha ee ahaa inuu isku soo fidinayo gobolka geeska Afrika. arrimaha ay weydiiyeen wafdiga Somaliland waxaa ka mid ahaa danaynta Maraykanka ee saldhigga berbera, waxaana si toos ah ay wafdiga u weydiiyeen haddiiba uu Shiinuhu isku fidiyo dalka Djibouti oo halis ku haysa danaha Maraykanka ee gobolka, in Somaliland ay hayso fursad ay u soo bandhigi karto Maraykanka. bishii Maarch ee sanadkii 2017 waxaa iyaguna socdaal rasmi ah ku yimi Somaliland diblomaasiyiin ka socota safaaradda Ruushka ee Djibouti, waxaanay kulan la yeesheen wasiirkii khaarijiga Somaliland ee xilligaas, Dr. Sacad Cali Shire. wafdiga ayaana xilligaas booqday goobaha berbera ee uu Ruushku dhisay oo u badan goobo military. geesta kale, damaca Ruushka iyo hadal hayntiisa Somaliland oo aan saxaafadda ku cusbayn
ayaa waxa ay hadal hayntooda maantu kaga duwantay kuwii hore. doorkan waxaa talada Somaliland haya madaxweyne Muuse Biixi oo wax ku soo bartay dalka Ruushka kuna hadla luqadooda. sidoo kale waxaa isaguna wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo isna wax ku soo bartay dalkaas Ruushka kuna hadla luqadooda. waxa kale oo golaha wasiirada madaxweyne Biixi hore ugu jiray balse xilka laga qaaday xubno kale oo iyaguna wax ku soo bartay dalkaas Ruushka. diblomaasi reer Somaliland oo diiday in magaciisa la sheego ayaa tilmaamay inay suuragal tahay in Ruushku ugu soo dhiirado Somaliland si ka duwan sidii ugu soo dhiiran jiray, maadaama oo ragga talada Somaliland haya ay yihiin rag Ruushka wax ku soo bartay. waxaanu yidhi waxay u dhowdahay in Ruushku siyaasad firfircoon uu ku wajaho Somaliland. Ruushka ayaa hore u joogi jiray saldhigga magaalada Berbera xilligii ay Somaliland ku jirtay midowgii burburay ee Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed, waxaana xilligaas guud ahaan Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ay xiriir soo kala lahayd dowladihii ku jiray midowgii Soofiyeed. dalalkaas oo ciidanka iyo saanaduhu kaba ka caawin jiray ciidamadii militariga ee dalka xoogga ku haystay. dareenadan isa soo taraya ayaa ku soo beegmaya iyada oo wadamada galbeedku aanay muhiimad badan siinin Somaliland, iyaga oo xagga dhaqaalaha iyo taageerada siyaasadaba aad u gacan siiya dowladda Soomaaliya. sidoo kale hay'adaha qaarkood ay yareeyeen mucaawimadii ay siin jireen Somaliland, sida hay'adda deeqaha dibadda u qaabilsan Mareykanka oo aad u yareysay taageerada ay siiso Somaliland halka ay mashaariicdeeda horumarineed u wareejisay dhinaca Soomaaliya.